شرفتين ومدربة انت شرتاني انت هاتشد صوحرتان شماغا ايدن كحيرانا يرسو شدان شعور عدكسي شرفتي سوارا شعور نينكي غرانيا شيلين ما سيستانه شرعيغي اسلامكو برتو كنا شقيايه inuu yahay wakiilkii shacbiga Islaamka wada daaciye xildhibaan Cabdikariim Xuseen Goore Shaacuur ayaa maanta lagu soo dhaweeyay deegaanka Jalan soo dhaweyn kadib waxaa loo soo gudbiyay degmada Buurtine ee gobolka Nugaal halkaas oo shacabka ku dhaqan degmada Buurtine ay ku sugayeen afaafka hore ee degmada Buurtine xildhibaan Cabdikariim Xuseen Goore Shaacuur ayaa markii uu soo gaaray bulshada u heelan soo dhaweyntiisa waxa uu la dhaqaaday salaan dadkii ku soo dhaweynayay afaafka hore ee degmada Buurtine ee gobolka Nugaal soo dhaweyn kadib waxaa xildhibaanku kulmo gaar ah uu kula qaatay hotel Al-Xarameyn iyo hotel Galgaxshe oo kamid ah hoteelada waaweyn ee degmada Buurtine ee gobolka Nugaal waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada dhalinyaro haween waxgarad ugu horeyntii waxaa munaasabada ka hadlay nabadoono iyo gudoomiyaha dhalinyarada bulsha soo raac iyo waxgaradka degmada Buurtine waxayna sheegeen inay doorteen xildhibaan Cabdikariim Xuseen Goore Shaacuur 2019 inuu yahay xildhibaanka u matali doona degmada Buurtine ee gobolka Nugaal sugeynay waxaan nahay shacabkii reer Buurtine waa ku sugeynay dhamaanteen dhalinyaro hadaan nahay odayaal hadaan nahay uqaal hadaan nahay dhamaanteen waxaan u heeganayn oo aan sugeynay aragtidaada iyo inaan ku soo dhaweyno anigoo ku hadlaya magaca beelaha Koonfureed Shaacuur waa nin aqoon leh waa nin samir badan waa nin dulqaad badan waa nin degan waa nin urursan waa nin matali kara ummadda degmada Buurtine xildhibaan Shaacuur markasta uu nala ballamo waqtigii uu nala ballamay markii aan la xiriirno ballanka sideedii looga soo baxay wax kasta oo noo ballan qaaday ama wax kasta oo ku qoranaa sawaan hadal laga gelin buu noo furin jiray waxaan codsanaynaa annagoo guusha soo raac reer Buurtine inaan la doorataan oo sanadkan xildhibaanada aan siisaan kabeel ahaan codkana waa siinay codsigiina waa aqbalay waana dooranay insha Allah dhinaca kale xildhibaan Cabdikariim Xuseen Goore Shaacuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu yahay xildhibaan u taagan 2019 baarlamaanka Puntland inaan ku guuleysanay inaan degmada Buurtine ku darno inay ka mid noqoto degmooyinka ay la mashaariicda JPLG-ga taasna waxay ahayd guul weyn oo u soo hoyatay degmada Buurtine waxa kale oo jira 30 bisha Agost mashaariicdii halkan laga hirgeliyay ee wasaaradda deegaanku ka daahfurtay biyo-xireenada ahaa oo iyadana aan qayb ka ahaa annagoo wafdi ballaarana oo labada xildhibaan ee degmada Buurtine aan ka mid nahay iyo wasaaradda deegaanku halkan aan nimid kuna daahfurnay mashruucaasna uu dhawaan imaan doono arrimihii yaraa ay ku soo kordhayna la xaliyay aan uga mahadcelinayo madaxweynaha Puntland waxaan maanta hortiina kaga dhawaaqayaa inaan u taagnahay kursiga mar labaad anigoo aaminsan haddii aan wax khaldayna inaan dib waxa wixii khaldamay aan sixi karo wixii aan qabtayna aan idin sheegay waayo aragnimo ugu filan aan leeyahay insha Allah ta'ala aan wax badan ka gaari karo arrintaasna waxaan rabaa inaad igu taageertaan ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Buurtine Maxamed Axmed waxa uu fariin u diray nabadoonnada iyo ismada Puntland wuxuuna ka codsaday in loo doorto degmada Buurtine xildhibaan Cabdikariim Xuseen Goore Shaacuur maadaama uu yahay shakhsi istaahila in loo doorto xildhibaanka Puntland waa inaynu mar labaad dooranno soosama sooma dooranno haddaba fariintaasi waxay ku socotaa nabadoonnada iyo ismada jaangooyinta iska leh xubintaasi siduu mar labaad u heli lahaa xilkiisii waa inay dhageystaan rabitaanka shacabka reer Buurtine Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtine